بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu soo galnay dhowrka cishay ugu dambeysay iyadoo laynaga dhammaaday doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada. ilaahay subxaanahu watacaala si nabadgelyo ah oo wanaagsan ilaahay nagu dhammeeyo. qof waliba xaq wuxuu leeyahay hal cod oo madaxweynaha ku doorto iyo hal cod oo ururada xisbi kaga dhigo. dadkuna waa siman yihiin. maanta quwadda aad leedahay haddaad tahay qof danyara, haddaad tahay nin dhalinyaro ah oo bilaa camal ah, haddaad tahay nin dhalinyaro ah oo waxbartay oo mustaqbalkiisu madow kaga jiro, haddaad tahay islaan hooye ah oo ubadku agoona ku korinaysa shaqo la-aan oo guryaha u jiifaan carruur bilaa iskuulah, maanta waxaad haysataa awood adiga iyo isku uga tihiin ninka ugu lacagta badan Somaliland iyo madaxweynaha iyo wasiirada aad la wada awood tahay. awooddaadaasi hadday isu geysaan dadka danyartii waxay noqonayaan quwadda ugu weyn ee doorashada wax ka beddesha. haddiise idinka laydinkala saarsaaro qabaa'il aad noqotaan oo idinkoo wada baahan ciddii wax idin qaban lahayd ka hor timaadaan oo u kala jabtaan, qof aad daafacdaan wax allo wax idin qabanayaa jirin oo soo tijaabisay, waxaa noqonaysaan un weligiin dad aan mustaqbalkoodu mugdi ku jiro oo maalintii ay awoodda lahaayeen iyagu gacantooda isku bireeyay. ilaahay idinka waxaan idinka rajaynayaa inaad wax maqashaan oo aad naftiina xisaabisaan oo beenta laydiin sheegayo iyo runta kala baragarataan. dalkiinnii baad joogtaan, cid idiin warrami mayso. dhibta idin haysata idinka idin haysataa. dhibtaas sideed uga gudbaysa ka fakir maalintaad codaynayso. halkan waxaa aad maalmahan oo dhan socdaa cadowga baaroonay cadowga Somaliland cadowga reer kulmiyaa kaga dhigtay. cadowgay sheegayaan waxa weeye waa annaga wey, waa dadka diidan maxaan ku idhahdaa maanta kasoo horjeeda xukun xumada Muuse Biixi ayaa cadowga. haddii cadow ay ku sheegayaan dadkaa de waxa weeye in ilaahay caqliba si aad caqli yeelato. cadow marka haddii qof ku sheegayaan oo ay leeyihin Cabdiraxmaan reer Ciro ayaa cadowga Somaliland isweydiin cadowga Somaliland siduu ugu tartamay kursiga madaxweynaha. waxaa la soo martay CID baa soo baadhay, xeer ilaalintaa loo diray. waxaa la baadhiyay maaha uun daryahan oo dhan 5 sannadood baa la eegay rikoorkiisa, qofkaasi dembi ma leeyahay mise ma leh. wixii oo dhan baa waxay xaqiijiyeen muwaadin Somaliland oo aan dembi lahayn. kolkaas had markuu ku leeyahay waa cadow, waa laba mid. caqligaagana waa in la kaashataa. waa inuu isagu daciif yahay oo dowladdaasi ayna cadowga xataa kaa celin kareen. cadow siyaasi ah iska daa cadow qori sitee oo u ogolaanayso ilaa xagga ugu sarreysay madaxtooyada inuu la tartamo dowladdaasi tahay dowlad aan wax alla waxay tahay jirin iyo inuu been kuu sheegayo. tii aad doonto adigu u qaado, laakiin labadaba waa inaad ku nacdaa madaxweynaha maanta ku ololeynaya. ninka ila tartamaya ee kursiga madaxweynaha Somaliland rabaa waa cadow. waa inaad garataa caqligaaga siduu ugu cayaaray. tukala waxa weeye 2 teeran buu madaxweynaha la doortaa. madaxweyne waliba teeramkiisa ugu horeysa waxba lama haro. wanaag wuxuu qabanayo dhan markaasuu qabtaa si koodho loo doorto. madaxweynaha maanta sheegi kara la wuxuu qabtay ee kaga hadhay waan baratamiya tooxa inoo ahaato iyo maanta oo arkayay koob loo dhiibayo meel sidii uu yahay ciyaartooya koob. marka waxa weeye xaqliga wuxuu ku xayaaraya ummadda. waa ummadda fakira. madaxweynaha orodna uma inaan diran, libaax u korana uma inaan diran, ya koob kubadda lagu cayaaro loo dhiibana uma inaan diran. madaxweyne caqliga ka shaqaysiiya oo ummadda u naxa oo ka faqiirka ah ee danyarta ah cashuuraha ka dhima oo maxaan ku idhahaa u doono waxbarasho bilaasha iyo caafimaad bilaasha iyo nolosha oo isbedesha ayaynu u dooran. xoolaha uu maamulaya waa cashuurtii danyarta laga ururiyey. waxaa la maamulayaa laisku hayaa maaha wax qofna uu leeyahay siyaasi uu ka dhaxlay aabihii maaha, wax reerkooda uu ka dhaxlay maaha. waa wax lacag laga soo ururiyey Somaliland oo dhan. qof kastaabana uu cashuur bixiyey. qof aan Somaliland cashuur bixini ma jiro ilaa kolaajigay jooga iyo ka muwaadinka maalinta cagaha saa u dhigto dhulka Somaliland cashuur bixiyaa tahay.
كوب كشاي بسدي وعشورين يا وعشورين إسلامته مسكين تيتا ما هذا حلقة كوي بين سوي عشورين تا وحي بسدي وحي سوي بستابة عروت عنا بور هذا بيسوي عشورين عشور تاسي وجه واحد لو عياري يا هذيك بدب نقول له شيء مركز وحن لا هاي تدبس صنعوا بسواركتين حكوكا مدحوين موسى إنه معصم مدحوين موسى معها موسى شالي موسى شالي معها قيمة موسى مانت قيمة موسى مانت موسى شالي أنا قال لسعني وعن كل سعني مسلمات سقان للدجالمية وعن كل سعني قبيلة دان للدجالمية وعن كل سعني شرع وهسريو وحسن كل سعني يعني وحي مدنا صدح ذا قضبين كل سعني مد نبات هل طلبك مقالب هل طلبك مقالب كل كان مدحوين موسى ماها موسى شرعي وموسى مانت أذوقنا هالنقطين تاجره شرعي النقط تاجر وضعك ما أنت أركه وبدله موسى ما أنت أتبرتو سيدا وحلو بدلو ما أنت أصوم بعد ديمقراطية الصومالي لا تسقاط ما أنت أصوم نين كستو كرسي فرديها وكوها برندونا وقرن دونا إن حساب الدرس عطو لكن هتاد جرن ويدو أود أقول له هاي إن وجامية هدلك كوبد شو عد بحنت هذا ورقد دايرة كل صندوقة ما أنت وجات أود لا هاي ما أنت هسي يعني كسو سياسي وكرسي كفريستا عبد الرحمن عرها النقض ما وسبحها النقض قف كستو أو كرسي كفرديا وقيمين دونا رأي هذا وكل جيسن دونا أو حقوق من دونا هذا سجرن ويدو سيدا وحلو بدلو أو وحقوق أبور من دونا ديكتاتورشيب وحلا كاليتاليس أيا حقوق أبور من دونا ولين واسهاله لكن هذا كسو علسو ninka aad aragtay kalitaliska ah ee keligiis ee saxanahaas waxaad ogaan doontaa oo qoomaan doontaa in badan mujtamaca Soomaaliland waxaan uga digayaa isbedelka inay bartaan inaan qabiil loo kala kaxayn inaan madaxa la isugu xidhin inaan cadow la isugu sheegin in insha Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala waxaynu ugu dhici doontaa doorashadaasi doorasho si nabadgelyo ah oo xalaala oo nadiif ah inugu dhacda waxaana natiijada ka soo baxdana si wanaagsan loo wada aqbalo waxaynu ka wada shaqayn doonaa tartanku waa tartanka caynkaasa waa sida isboortiga waa la tartamayaa maalinta ay dhammaatana ee khayr ku dhammaatona waxa weeye waa la haniyeynayaa marka waxba meelo fog ha gaadhina yaana inaga noqonin huutigii iyo tuustigii dad walaalo wada dhasha baynu nahay qarankaynu wada leenahay fikirka aan qabo waad ka soo horjeesan kartaa laakiin waxaan xaq kuugu leeyahay inaad dhegaysato أدنينا كل جيستو كبعدنا العضيو أنت سبا مارس يعني حقول أنا هاي كمان موقتو واحد برامج سيدي لقوري مو يعني واحد لقوها والقلي أو الهجاميه ودن كلام تدرس سنة حكومة أي أفرتك السنة سياسية كسوجري وحكى دور بضايين وبريتني يلي باح لقوري يقاري لو قال سعر يو كوب ما أنت لودي بيو halku barnaamijkii waxqabadkiisii fursadda dahabka ilaahay siiyey in wuxuu kaga faa'iiday maanta ummadda u sheegi lahaa markaas isbedelka u fooda xisbiga wadani ayaa isbedelka ugu dhow kaasaa wax bedelaya u fooda xisbiga u fooda oo soo saara madaxweynaha ururadana qof waliba ururkii uu la socdo ha u foodo waliba khaasatan anigu horena waan uga dardaarmay ururka la yidhaahdo barwaaqo ee reer awdal wataan ururkaasi wuu qurxinayaa Somaliland cidii aan qabyaalada aaminsaneen ururkaasi ha u foodo cid walka saabana ururkeeda ha u foodo laakiin isbedelku ugu weyn uu raadina waa madaxweynaha insha Allah ta'ala guul baan idin rajaynayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh